madaxweynaha waxa ku codsanaya kulli caasimadda dee uu caawiyaa deena mooga waa laga qayb qaataa caasimadda labaad ee dalka waa indhihii gobolada bari oo dhan marka iyada lafteeda in la caawiyo oo laga qayb qaataa baa loo baahan yahay xildhibaanka loogama baahna inuu cashuurta marnaba joojiyo marka waxa madaxweynaha ka codsanaynaa deena caasimadii labaad ee dalka ilaawin eegada karaasku markuu kacana lama sugo in haddii beedankeeda leeyahay halkan ariga loogu cashuuro wixii kale dhaqaale loo sameyn karayna burco loo sameeyo gaara eriboodkuna waa xiran yahay waxa weeye kaabayaasha dhaqaalaha kuwii ugu waaweynaa ilaha dhaqaalaha ayaa loo baahan yahay wadadii ood weyn waxbay soo kordhin lahayd haddii la sameeyo xildhibaan hore golaha deegaanka degmada burco ahna gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeed ka mideeye cabdirasaaq xuseen obsiye oo ku magac dheer shiina faliidh oo TV-ga Honkebel waraysi ku siiyey magaalada burco ayaa ka hadlay xaaladda magaalada burco iyo khilaafka xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco isagoona baaqu diray madaxweynaha Soomaaliland iyo bulshada magaalada burco waxaanu xusay shiina faliidh in la hagraday caasimadii labaad ee Soomaaliland oo ay ka hadhay magaalooyinka dalka isagoona taabtay garoonka diyaaradaha magaalada burco oo xidhan iyo ilihii dakhliga gobolka Togdheer golaha deegaanku ilaahay mahadii muddo aan badnayn buu imka jiray adigu dee imka waa badan waa kala baran yihiin baan malaynaya laakiin way shaqaynayaan shalay oo kale wadooyin halkana oo fara badan bay deebaneynayeen si wacan u shaqaynayeen waxa meeshii taala horta meeshan dhaqaale ahaan waa la hagraday waayo caasimadii labaad ee dalka custom soo galaa ma jiray customadu dee waxa weeye afarta koone ee kala maxay ahayd ay ka godoosanto customada custom kala ku beegan customyada wax ka soo galaan ma jirto waxa la doonayay dawladdu il gaar ah inay ku eegto kumana eegin waxa weeye customer weyn bay leeyihiin degmooyinka kale oo qaarba meel ka soo galaan ilaa caasimadii yaade beedankeeda waxba soo gala halkan xoolaha nool bay lahayd madaxweynuhuna xilli golaha iyagii hore aan hadda beedankeeda leeyahay in kabka la isku darayo waxaanu ka codsanay wuxuu ka sheegay berbera hadalka madaxweynuhu waa wareegtudii maaha wax la iska yiri wuxuu ka sheegay burco inay xoolaha nool leedahay xoolaha nool halka loogu cashuuro dabadeedna halka dakhligeeda ka qaadato al'aanana may fulino golahan dambe lamay kulmin golaha iyagii hore ahayd ariga haddii halkan lagu cashuuro arigana waxtar bay u noqon lahayd waa meel qabow isagoo cashuurtiisii qaatay oo si degan halkan loogu cashuuray buu geli lahaa maasharka dabadeedna wuu dhoofi lahaa iminka berberi ma qaadato wixii dhoofaya waynu ogni wixii soo degay qaadata haddii markaa saameyn iyada kuma leh haddii halkan bal xoolaha nool halkan laynoogu cashuuro 10% baa inooga hadhi lahaa 10% kaasaa degmada waxtar lahaa dawladda waxaan madaxweynaha u soo jeedinaya hadalku waa wareegto waxaanu ka doonaynaa madaxweyne inaad taahir geliso oo ariga kastamadaadu waa isku mid kastamada dalku ariga in halkan burco loogu cashuuro 10% kaas degmada u hadho ama dhaqaale kale wixii loo sameyn karana loo sameeyo kabkuna waa nagu yiri burcaahan marka waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa deegaanka caasimadii labaad ee dalka ilaawin eegada karaasku markuu kacana lama sugo wixii kale dhaqaale loo sameyn karayna burco loo sameeyo gaara si maaragtay haddii badan nolosheedii dib ugu soo noqoto waxay ku shaqeeyaan inamadan ardiyad baa soo gasha ardiyaduna maanta waa gaabanta waa kan dhacay haddii beedankeeda le bisaarada ay dagaaladu ma jiraan ila dhaqaale oo iminka baloorkii dee ama la kaliibsan jiray ama la dhisan jiray wuu taagan yahay maalgelin kale oo iminka heshaana ma jiro marka haddii beedankeeda le madaxweyne inaad hoos u eegtaa loo baahan yahay magaaladan golaha iyaga hore in badan baanu ka hadalnay wax la jiidaana lagama hoos qaadin cashuuro kalena way jiraan oo kala nooc ah oo aan la qaadin wax alla waxaan sharaab iyo wax alla waxaan biyo la soo saaray iyaga qashinkooda magaalada haysto in lacagta ka qaadaan baa loo baahan yahay golaha deegaanka hadaa tiin oo cashuur saartaan cashuurta iibka ka qaadaan madaxweynaha waxa ku codsanaya kulli caasimadda dee uu caawiyaa deena mooga waa laga qayb qaataa caasimadda labaad ee dalka waa indhihii gobolada bari oo dhan marka iyada lafteeda in la caawiyo oo laga qayb qaataa baa loo baahan yahay xildhibaanka loogama baahna inuu cashuurta marnaba joojiyo waayo maxaa ummadda lagu shaqeynaya cashuurta la joojiyo cashuurta dadweynuhu inay bixiyaan baa fiican si adeeg loogu qabto xildhibaanadu hadday yiraahdeen anu waxaan qabaa inay ka noqdaan waayo dee mushaarkoodii baaba ku xidhan marka wax kaleba laga tago xildhibaanku xaq uma laha inuu cashuur yiraahdo cashuur ka hadlo wixii kale ee mucaaradada ee kursi kale riixasha waa loo goliyay laakiin waxbaan lagaba hadlin waayo ummadan maalin qudho qashinka la qaadi waaya
dee magaaladu way nagu uraysa sooma adeeg kale la joojdaa taas iyadu waa xaaraan in laga hadlo ama cid lagu booriyo in cashuurta la joojo kursi kale riixashadu marka wax soconayaan dhaqaale jire horumar jiro waan samayn jirnay laakiin iyadoo horumar soconayo dee wax soconayaan oo dhaqaale jira baanu hadda beedankeeda leeyahay anagu dawada hadli jirin airportkani waa xiran yahay waxa weeye kaabayaasha dhaqaalaha kuwii ugu waaweynaa sidii airportka la inoogu dhisi lahaa falowgeed qabta baadi doona ilaha dhaqaalaha ayaa loo baahan yahay wadadii ood weyn waxbay soo kordhin lahayd haddii la sameeyo way taagan tahay marka kaabayaasha dhaqaalaha inay ka shaqeysaan baa loo baahan yahay muddada idin hadhay dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka mideeya Shiina Faliid wuxuu ka hadlay sida ururka mideeya u arko tabashada saami qaybsiga gobolka Awdal waa si wacan horta beel waliba in cabato ama gobol kasta inuu cawdo oo dee dawladdiisa u cawdo xaq buu leeyahay shacabna uma cabanay dee dawladooda u cabanayaan oo leeyahay war waxaas naga maqalay waxa ayagaan helno dawladuna uma dolon hooyay u tahay wixii laga cawdo in la fadhiisato kala hadasha loo baahan yahay oo waliba madaxweynuhu wuxuu gacanta ku hayo balanta baarlamaanka iyo waxa soo joogaane wuxuu gacanta ku hayo uu u badiyo oo goboladan kale uu ka qaado oo hadda beedanka beesha dhex uu ka qaado oo iyaga u badiyo golaha wasiirada shaqooyinka kale ee hadda beedankeeda leen nolol maalmeedka ah waxa la waxaasoo dhan uu badiyo ka furiya laabana lagu eegaya way cabashada reerka la eego ama gobolka la eego waxay ka cabanayaan la fadhiisto Soomaaliya iyaguna wixii hadda beedankeeda lee ka baxsan jamhuuriyadda Soomaaliland inaan meesha keenin ayaa muhiim ah laakiin wixii jamhuuriyadda Soomaaliland gudaheeda cabashaha ka jira ama dhexdeeda ama wax qaybsiya xaq bay u leeyihiin ka hadlaan anigu saasan qabaa reer Awdalna waxaan leeyahay hooyadii Soomaaliland baatiin maanta idinkoo wadanku marka dhibaatooyinkan oo kala jiraan ina sidii hooyo u noqotaan baa loo baahan yahay ama hormuudkii ahaan jirteen oo aydan iska dhigin dee dad dayacan ama dad hadda beedankeeda leeyahay xaq laatiin xaqle anu xaq laanu aqaanaa Mahad Cali Goodir Honkebel TV Burco